Assalaamu calaykum waraxma. Halkani waa Hidraac Official. Aniguna waa xoogsade. Fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. Muuqaalkan la gari leena wadaaga asxaabtaada kale. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno barnaamij la magac baxay badbaadada qoyska kaasoo noqon doono taxane intii aan ka gaarna haddii Rabbi raali ka noqdo oo in waqti badan uu qaatay macquul tahay. Hadba sidii aan kaga gaarnana oo in kugu soo gudbin doono haddii Ilaahay Rabbi raali ka noqdo. Barnaamijka waxaa la yiraahdaa badbaadada qoyska. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa wax badbaadiyo. Laakiin waxaan halkan ka soo gudbin doonaa talooyin iyo tusaalooyin aad u fara badan kuwaasoo ah kuwa daraasad aan ku sameeyay iyo kuwa aniguba aan waayo arag u ahay. Badbaadinta qoysku waa wax aad iyo aad muhiim u ah. Qoyskuna ma ahan wax qof kasta uu ka soo bixi karo, mas'uuliyadeedana uu gudan karo. Qoysku wuxuu u baahan yahay deganaan, waayo aragnimo, ixtiraam, feejignaan iyo waxyaabo kale oo aad u fara badan si uu ahaado reerkaas mid dhismo amaba dhisnaado. Qoysku waxyaabaha uu u baahan yahay in laga ilaaliyo, waxyaabaha uu u baahan yahay in lagu dhaqo, la macaabilka qofka kula nool, la macaabilka carruurtaada, la macaamilka dariska iyo la macaamilka bulshada aad ku dhex nooshahay. Iyo sidoo kale mas'uuliyaddu qofka ay saaran tahay, hooyada mas'uuliyadda ilmaha ka saaran, sidoo kale aabaha mas'uuliyadda ka saaran hooyada iyo ubadkeeda. Mas'uuliyadda aabaha ka saaran dariska iyo bulshada uu ku dhex nool yahay. Ilmaha iyo waxa looga baahan yahay, ilmaha iyo sida ay u baahan yihiin in loo tarbiyeeyo. Mowduucyadaas oo aad u fara badan ayaan kaga hadli doonaa haddii Rabbi raali ka noqdo barnaamijkan. Barnaamijkan oo magaciisu uu yahay badbaadada qoyska. Badbaadinta Ilaahay baa iska leh reerka inuu dumo waa wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaggiisa ka yimaado. Laakiin wax unbaa sababo isku dhaca labada qof ay badnaado, isfahan waa iyo waxyaabo fara badan ee soo kala dhex galo sida in maaragtay dadka baxsan qoyskaas ay wax ku yeeshaan lagu yeeshaan oo talada qoyska wax ku go'aamiyaan. Inta haddii aan kaga gudbo barnaamijkii waxyaabaha uu ka koobnaan doono, waxaan rabaa inaan qoys yara dul istaago macnihiisa iyo waxa uu yahay. Qoys horta waa halka ay ka aasaasanto bulsho. Bulsho halka ay ka aasaasanto waa qoys. Qoyskaasoo ka kooban ubad, hooyo iyo aabe. Iyo sidoo kale haddii ay jiraan ehelada labada qof sida waalidiinta labada qof, walaalaha labada qof iyo wixii la halmaalo. Qoysku horta waa intaa. Qoysku markuu intaa ka kooban yahay, waxaa jiro qoyska waxyaabo uu maaragtay u dhigmo amaba looga dayday oo qoyska laga bilaabayba. Qoysku waxa uu dhigmaa dowlad dhisan. Dowladdaasoo haddii ay maamul wanaagsan iyo madax wanaagsan ay heshana waxa weeye noqonayso dowlad taabagasho ee xoogaysato. Ama haddii dowladdaas hogaamiyaheedu uu xumaado inay noqoto mid fashilanto, burburto aan maaragtay waxaan khasaarayn aan laga dhaxlin. Qoysku horta macnahaas oo kale uu leeyahay. Wax allaaliya waxa ay dowladdu u baahan tahay ayuu qoyskan u baahan yahay. Qoysku waxa uu yahay sida qofka ugu sarreeya ee aabaha ah haddii uu mas'uuliyadiisa uu gabo inuusan qoyskaasi ahayn mid sii taagnaan doono. Hooyadana haddii kaalinteeda ay ka soo bixi weydo oo mas'uuliyadda aabaha uu leeyahay midda ka hooseysa inay ayadu leedahay aysan ogaanin ay ka soo bixi weydana, qoyskaas waxa uu noqonayaa mid burbura. Haddaba qoyska haddii uu kala mid yahay dowladdii iyo siday u shaqayn lahayd iyo systemkii dowladda haddii asagana sidoo kale u baahan yahay, waxaa muhiim ah in maaragtay feejignaan aad u fara badan iyo ixtiraam,
ka feejignaan waxyaabaha soo dhexgeli karo iyo in badan ee ka fiirsashaa in maaragta qof kasta ay xil ka saaran tahay. qoyska waxa uu yeelan karaa cadow, waxa uu yeelan karaa saaxiibo, waxa uu yeelan karaa dad iska caadi ah ee labadaas midnaba aan ahayn. qoyska waxa saaxiib u noqon karo ama cadow u noqon karo inta badan waa deriska iyo eheladiisa. ehla waxaa jirto aad iyo aad u xun ee kala geeya labada qof, amaba ha ka socdaan xagga ninka ama xagga gabadha ka socdaan, kuwa doonaba ha ka socdo. waxaa jiro dad ehla ay aad maaragtay reerka u farageliyo, taladiis inay wax ku yeeshaan iska dayo, go-aankiis inay wax ka yeeshaan isku dayo. waxyaabahaas haddii ay bilowdaanna waxaa halkaa maaragta ka baxayo in dowladdii waxaan leeyahay qoyskii maaragtay sirtiisa qarsooneyd inay bannaan ka tagto. haddii qoyskaas sirtiisa hal mar la helana waxaa weeye waxaa fududaanayso in waddo kasta oo loo soo mari karo maaragtay ay furanto ama fallaa fahmo. qoyska marka waxaa rabaa in laga ilaaliyo saaxiibka xun, deriska xun iyo ehelka xun intaba. ehelka xun wixii idinka dhexeeya umbaad maaragtay la wadaagi kartaa amaad la sheergarayn kartaa. wixii asaga aan khuseynin iyo adiga ku kaasana haddii waxaa weeye taladeeda inuu wax ku yeesho waa wax aad looga fiican yahay. qoyska taladiisa waxa ay ka goodaa waa hooyada iyo aabaha reerku uu ka dhexeeyo. ayagaa go-aanka ugu dambeeya gaari karo hayo maya kuu doonaba ha noqdo. inay isfahmaanna ayaga ku xiran tahay, inay kala tagaan ama isdilaanna ayagay ku xiran tahay. wixii intaa ka baxsan ee qoyska lug ku yeelan karo waa labada waalid ee maaragtay hooyada iyo aabaha. kuwaana waxa weeye talo wanaagsan bay ku yeelan karaan. haddii talo xun ay ku yeeshaan waxay u baahan yihiin in si toosa looga qabto. qof kastana waxa weeye waxa uu mudan yahay waajibkiisa loo sheego. sidoo kale deriska xunna waxa weeye qoyska aad buu u saameeyaa. qoyska waxa aad u saameeyo deriska xun ee isu soo wareego. talooyinka ay siiyaan maaragtay dumarku markii ay saaxiibaan ee isu soo wareegaan waa ayaguna waxa weeye saameyn aad u fara badan bay guriga ku yeeshaan, iyo qoyskaas inuu burburo, in maaragtay dulan meesha uu ka dhasho oo hooyadii iyo aabihii reerka lahaa la isu diro. la yiraahdo maaragtay saan ma ahan, saan inay kugu habboonayd, gurigan in lagaa bedelo noocan uma qalantid, waxaa tahay gabar noocaas iyo noocaas ah, ninka maaragtay dhaqaale ka samee, ehelkeeda maaragtay ka noole. waxyaaba aan munaasab ahayn oo dhan in halkaa ay soo galaan. halkaana haddii waxa weeye labada qof ay ku kala irdhoobaan oo qofba qofka kale wax uusan awoodin uu dusha ka saaro, iyo maaragtay hadal joogta ayaan dhammaanayn. waxyaabahaas oo dhan marka waxaa looga nabadgeli karaa ama looga badbaadi karaa inaad iska ilaalisood ka feejignaato saaxiibka xun iyo deriska xun iyo ehelka xun intaba. qof kastana waxa uu kaa mudan yahay aad maaragtay waajibkeeda aad siiso. waxaa intaa dheer labada qof inay qofba qofka kale si gaara mas-uuliyad iskaga saaro. owlaadda idinka dhexaysana qof kasta mas-uuliyadda ka saaran uu ka soo baxo. haddii ay taladu qoyska ay ku koobnaato labada qof ee uu ka dhexeeyo reerka, inta badan waxay u badan tahay inuu hagaago qoyskaas, mid ismaqlo uu noqdo, mid aad u wanaagsan uu noqdo, lagana ilaaliyo inay soo dhex galaan ummado kale. caawa intaasan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena hordhac buu iska noqon doonaa. wixii hadda ka dambeeya umbaan maaragtay qodob dul istaagi doonaa haddii rabbi hal ka noqdo. haddana waxaan inkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.